السلام عليكم سو dhawaada asxaabi shirkii ay saddexdeen ku go'aamiyeen mustaqbalka dunida xilligii dagaalkii labaad ee adduunka bishii February ee sanadka 1945 saddex nin ayaa ku kulantay goob loo dalxiis tago xilliyada fasaxa damaashaadka waxayna u shiriyeen si ay go'aan uga gaaraan mustaqbalka adduunka naasiyiintii Jarmalka ayaa markaas jilbaha dhulka dhigtay oo burburay ciidamadii Sofiyeedka ayaa ku sii dhawaanayay magaalada Berlin halka xooggiis baysigana ay ka gudbeen xadka dhinaca galbeed ee Jarmalka dhanka badweynta Pacifica ciidamada Mareykanka ayaa guulo dhiig badan ku daatay gaadhay waxayna ku sii siqayeen waddanka Japan maadaama ciidamadooda la arkay inay ku guuleysanayeen dagaalkii raggii lagu tilmaami jiray saddexdan nin waaweyn oo kala ahaa madaxweynihii Mareykanka Franklin Roosevelt ra'iisul wasaarihii Britain Winston Churchill iyo hogaamiyihii midowga Sofiyeedka Joseph Stalin waxay isku waafaqeen inay ku kulmaan magaalada Yalta oo ahayd meel loo dalxiis tago ay Sofiyeedku ku lahaayeen badda madow markii uu soo idlaaday dagaalkii ugu dhiigga badnaa ee abid soo maray dunida inta la og yahay 57 sano ka hor xulafadu waxay doonayeen inay ka hor tagaan in dagaal saas khasaaro badan uu mar kale ka dhaco caalamka laakiin Mareykanka iyo Ruushka labaduba waxay doonayeen in mid walba shuruudihiisa gaarka ah lagu wada shaqeeyo iyadoo xitaa heshiis uu ka dhacay Yalta dhowr bilood gudahoodba waxaa bilowday dagaalkii qaboobaa dunida kaasoo uu sababay hardanka u dhaxeeyay labada quwadood ee ku cusbeed adduunka fikradahooduna ay kala qaybsanaayeen maxaa dhacay bishii February ee sanadkii 1945 markii uu bilowday sanadkii 1945 naasiyiinta Jarmalku way ku jabeen dagaalka waddanku wuxuu isku dayay inuu iska caabiyo dhinacyadii ku soo duulay inkastoo ay sii wiiqmaysay awoodiisu laakiin natiijadii dagaalka wax shaka kuma jirin dhanka bariga Yurub ciidamadii midowga Sofiyeedka ayaa guul ka qaatay militarigii Jarmalka kadib markii ay 4 sano dagaalamayeen kadib dagaal socday in ka badan 3 sano ciidamadii Sofiyeedka waxay ka adkaadeen militarigii Jarmalka waxayna ku sii socdeen magaalada Berlin waxa la qiyaasaa hal ka mid ah 7 ruux ee muwaadiniintii Sofiyeedka ay ku dhinteen dagaalka waxaana lagu sheegay inay dadka ka dhintay isku darkooda ahaayeen 27 milyan oo qof 3 meelood laba ka mid ah dadkaas waxay ahaayeen rayid qaar ka mid ah dadka cilmiga u leh dagaalkaas wayba ka sii badiyeen tirada intaas magaalooyinka waaweynaa ee waddanka iyo dhulalkii qaniga ahaa waxa burburiyay dagaalka warshado beero iyo xitaa guryo kuma hadhin dhulkii uu dagaalku saameeyay daawada su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxay ahaayeen ujeedooyinka hogaamiyaashani Joseph Stalin waxa ka goonayd inuu dalkiisu mar kale cagaha ku istaago wuxuu Yalta tagay isagoo doonayay inuu galaangal weyn ku yeesho arrimaha ka socda bariga Yurub uuna isagu hormuud ka noqdo si loo badbaadiyo dhammaan dalalkii xubnaha ka ahaa USSR wuxuu sidoo kale doonayay in la kala qaybiyo oo dhaqaale ahaan loo burburiyo Jarmalka si uusan mar dambe halis u noqonin abid Joseph Stalin wuxuu ogaa in dalalka reer galbeedka oo kaliya ay ku xidhnayd in arrimahaas la hirgeliyo laakiin Winston Churchill wuu fahansanaa ujeedooyinka Joseph Stalin bishii Oktoobar ee sanadkii 1944 wayna ka wada hadleen habkii uu Ruushku damacsanaa in loo kala qaybsado maamulka bariga Yurub wuxuu sidoo kale ogaa in ciidamadii Sofiyeedka ee ka adkaaday Jarmalka ay weli aagaas ku sugnaayeen kana tiro badnaayeen ciidamada reer galbeedka sidoo kalena UK aysan waxba ka qaban karin haddii Stalin uu go'aansado inay halkooda iska joogaan laakiin madaxweynaha Mareykanka wuxuu watay shuruudihiisa u gaarka wuxuu rabay in Joseph Stalin uu saxiixo heshiiska aasaaska qaramada midoobay oo markaas ahayd hay'ad cusub oo horkacaysay nabadgelyada caalamka su'aal kale oo isweydiin mudan daawada ayaa waxay tahay maxaa ka dhacay Yalta inkastoo Roosevelt uu doonayay in lagu kulmo meel ka mid ah badda Mediterranean-ka Stalin oo ka cabsan jiray duulimaadyada diyaaradaha ayaa soo jeediyay in la sugu tago Yalta wada hadalladu waxay socdeen intii u dhaxaysay 4 ilaa 11 bishii February waxayna hogaamiyaashana ku sugnaayeen dhismaha wufuudda Mareykanka ee loo yaqaanay qasrigii Lifadia saddexda hogaamiye waxay hore ugu kulmeen magaalada Tehran sanadkii 1943 hal usbuuc kadib saddexda hogaamiye waxay go'aanadooda u sheegeen dunida inteeda kale kadib markii shuruud la'aan isku dhiibtay Jarmalku waxa la isku raacay in la burburiyo magaalada Berlin waxa loo kala qaybiyay laba dhinac waxaana laga dhex dhisay derbi waxay caasimadda Jarmalka kala qaybsanay ilaa laga soo gaarayay
sanadkii 1989 Roosevelt qorshihiisa ugu weyn oo uu xooga saarayay waxa uu argelinta dhismaha qaramada midoobay wuuna ku guuleystay. dhammaan saddexda wadan waxay isku raaceen inay u fududeeyaan magaalada San Francisco 25 bishii Abriil 1945 si ay gacan uga geystaan abuurista hay'adda caalamiga ee qaramada midoobay. intaas waxaa sii dheeraa in hogaamiyihii Ruushka uu cad ku maray inuu faragelin military ku sameyn doono Japan kadib marka uu ka adkaado Jarmalka. Winston Churchill wuxuu ka walwalsanaa xaaladda ay ku dambeyn doonaan dalalka bariga Yurub, wuxuuna ciidamadiisa iyo kuwii Mareykanka ku booriyay inay gaadhaan ilaa intay gacanta uga dhigi karaan bariga Yurub ka hor inta uusan dagaalku dhammaanin. wax ka yar 2 sano kadib madaxweynihii Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dagaalkii qaboobaa si loo xakameeyo awoodaha Soviyetka ee sii weynaanaysay. Winston Churchill iyo Roosevelt labadaba waxaa lagu dhaliilay inay wado u fureen Stalin markii lagu shiriyay Yalta, laakiin sida iska caday madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha UK ma aysan haysanin awood ay wax badan ku qabtaan, maadaama Joseph Stalin uu lahaa ciidamo badan oo markaas dagaal ku guuleysta. halkaas waxaynu ku soo koobnaa shirkii saddexdan ku go'aamiyay mustaqbalka dunida xilligii dagaalkii labaad ee adduunka dhammaad. halkaas ayaynu ku soo koobaynaa taariikhdii dagaalkii labaad ee adduunka daawade. insha Allah waxaan isku day doonaa intaas oo taxanaan hore u soo deynay inaan hal xalqad ka soo wada dhigno. fiidiyowga like sarsiina share garow. Assalaamu calaykum.